kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada janalka Xayla Media. Maanta waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo arrin cajiib ah oo aad iyo la yaab u leh. Qisadan waxay ka hadlaysaa gabadh baa maalmaha kamid ah su'aal ayay niman culimo oo tabliiq ah ayay weydiisay. Su'aasha waxa sida ma ay u dhacday. Ku soo dhawow qisadan waxay ka dhacday dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa ayay ka dhacday. Culimo tabliiq ah ayaa maalmaha kamid ah waxay aadeen muxaadaro iyo hawl ku saabsan ayay aadeen. Markaa waxay la kulmeen dad aad iyo aad la yaab u leh ayay la kulmeen. Dadkii markay soo aruuriyeen way isugu yimaadeen waxay muxaadaro iyo wacdi ayay u qabteen. Muxaadaradii markay u qabteen waxaa dhacday dadkii gabdhihii waxay yiraahdeen anagu hortu qariyadii bay tageen. Qariyadaasi magaca muslimi ka yihiin laakiin muslimiin marka qaabka muslimiinta ay sameeyaan ma sameeyaan oo muslimiinta lagu yaqaano. maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Qur'aan wuxuu ku leeyahay inna diina 'inda Allahi al-Islaam. diinta Ilaahay agtiisa uu jecel yahay waa islaamka kaliya ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala Qur'aan ku leeyahay. sida darteed qisana maanta aan inii sheegay oo Ramadaanku ay tahay 10ka Ramadaanka qisadan waa qiso la yaab leh oo aan aad iyo aad markii aan maartay dhageysanayay aad iyo aad iga walbaharisay. dadka muslimiinta magaca muslimiinta wata qaarna diinta bay ku daca qurmeen qaarna diintii ayay ka ooman yihiin. sida darteed waxaa dhacay markaasi markii dadkii ay maxay sameeyeen muxaadaro u jeediyeen markaas waxay yiraahdeen nimayo anagu dad muslimiin ayaa nahay laakiin islaam wax kama naqaano. afar fac muslimiin baan nahay laakiin ma tukano mana soono tawxiidka ma saxi karno laa ilaaha illa ma saxi karno. saa darteed waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay bal in aad toonbari tareeri nagu sameysaan dumarka si bal dumarka bal dacwada loogu sheego. waxaa dhacay markaasi gabdhihii markii toonbari baa markaa halkii loo joogay qolyahan tabliiqa waa arday culimada tabliiqa way socon mar kastaba dacwadii diinta ka marka qayb qaataan fidintaankeeda. alxamdulillah marka waxaan la hindhisoon marka waa khayrkaasi iyo wanaagaasi aan ka hadlayo. maxaa yeelay hadalka Ilaahay baa raali ka ah aan ka hadlayo maanta oo Ramadaan ah 10 ay tahay taariikh bish Ramadaanka. marka waxaa dhacday markaasi in toonbari markay u dhamaatay oo salaadii iyo taxiyaadkii iyo laga saxay waxyaabihii kooga ah qofka muslimka looga baahnaa ee salaada inuu saxa faatixadii iyo taxiyaadkii in laga saxay. markii laga maalinka 11aad waxaa marka la yiri seminar baa loo qabtay. marka wixii la baray ayaa waxaa la rabaa in laga imtixaan looga qaado oo qofkii saxay iyo qofkaan la saxin. marka waxaa dhacay markaasi dadkii waxay sheekada la wado barnaamijka la wado maxaa dhici doona marka maxaa dhacday markaasi dadkii gabadh baa ka dhex istaagtay su'aal baan qabaabay tiri waxa la tafadal su'aasha ka jawaab baa la yiri. su'aasha markay ka jawaabaysay waxay tiri hooyo ayaan ahay bay tiri 2 ilmood baan leeyahay bay tiri qof muslimna waan ahay bay tiri oo muslimiinta ay wada arkayseen qaabku yahay iyo noocu yahay arkayseen. ninkayga waa muslim 2 cunug aan dhalay xarig xalaal ah kuma dhalanin xarig xalaal ah kuma isa dhalanin waa iska saaxiibnay bas sidii ayaan maartay ku dhalaabay tiri. marka waxaan rabaa bay tiri in maanta naloo faragodo oo wixii islaamka iyo shariica islaamka ay ka qabto nala waafajiyo ayay yiraahdeen. ka tag waxaa la yiri culimadii marka tabliiq ahayd waxaa la yiri waa diyaar culimadii la raadinaya waa isku waxaynaya waa isku xalaaleynaya caawana isku beti kartaan ajnabiyaad kala tiin kala barya meel kala barya. saa darteed waxaa la rabaa inaad berri marka aad noo imaanaysaan adiga odaygaaga oday ma jirto laakiin saaxiibkaaga ilmaha ka dhalay inaad marka aabaha iyo hooyada noo keento.
waayahay gabadhi waxay tii su'aal kale aan qabaa hooyada iyo aabahay aad sheegaysay aad leedihiin nagu yeera waxa dhacday hooyada iyo aabahay laftooda waa sidaan oo kadalika aniga lafteedina la hadlay waxay tiri xarig xalaala kuma dhalanin xarig xalaala maanan ku dhalanin bay tiri marka waxaan u baahanahay bay tiri in maartay bal naloo faragado oo arintaasi qadiyadaasi maartay wax naloo waxay adigu markii dambe qadiyad waa laga qayb qaatay si fiican baa arintii loo habeeyay waa la isku duburiday dadkii waa la isku meheriyay waxay markii ku dareen hooyada iyo aabahay gabadha waxay tiri waa waayeelo weeyaan علشان waxa waa dad duqeey ah oo 90 80 70 marka lambaradaas garaacay waxay yiraahdeen marka dadkaas ayka waa yeelka ah mana tukadaan mana soomaan magaca muslimiinta way sheeganayaan la ilaaha illa allah oo jajaban oo tacbaan oo geesaha iyo furihi kala laaban ayay ku dhawaaqayaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa garanaya qaabku dadkaasi oo la xisaabtamayo marka waxay leeyahay waa hore oo umbaana la islaamiyay saddex qarni ka hor xilligii malaha Uthmaaniyiinta iyo Portugiiska iyo meelaha maartay umbaana la islaamiyay hadana hadama kulay hadana sidaas weey marka waxay ku soo dareen waxaan rabnaa gabdhihii oo marka taqriiban 10 gabdhood 13 gabdhood meelahaasi ayaa waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay in la geeyo magaalada la yaqaan Gaarisa si aan u helo rag aan u helo maxaa yeelay intii aadna barteen way naga baaba'maysaa way naga masaxmaysaa marka waxaan u baahanahay yiraahdeen in la sii qaado nala geeyo deegaan dad muslimiin ay joogaan waliba dadka Soomaalida waa dad diinta ku fiican in halkan la geeyo si aan diinta Ilaahay u barno oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu aan ugu xidhnaano saadarteed waxa laga yaabaa dadkaasi magaca muslimka haysta in ay yihiin dad jeclaan lahaa diinta laakiin ma soo dhaxgali karaan maxaa yeelay bay'ada ku dhasheen oo dhan waa wada noocaas koofiyad yar oo cad buu wataa ama koofiyad yar oo maartay kuwan dumarka ay sameeyaan ama ay falkiyaan bay haystaan ay wata madax ugu jirta muslim baan ay ku dhig markaas oo muslim wuxuu kala soo baxay jeeb kala soo baxaya waatama inaa muslimata tana xaqiijinayso ku dhihi midan ayaa ku xaqiijinayso ayuu leeyahay saadarteed marka waxa loo baahan yahay annaka hadaan nahay fadlan haday qisadan ku soo gaadho oo arin aad iyo aad murugo weyn u leh oo tiiraanya leh in aad faafisid oo ummadda dacwadii diintana xaq ayaa ka saaran hadaa tahay qof muslim ah sidii dacwadii diinta oo u faafin lahayd iyo khayrkii iyo wanaag oo qayb qaadan lahayd maxaa kale ku jira qisada raacsan meesha deegaanka iyada hadii gabadh oo xayl ku dhaco dhiga ku dhaco ama ay dhasho waxa loo yeeray qof muslim ayaa loo yeeray oo deegaankaasi markaas uu tusay intuu maryaha ka furo oo musqusha la galo meesha baafka lagu qabayso la galo ayuu u qabeynaa wuxuu dhahayaa intuu maryaha ka furo ayuu dhahay halka mayr dhiga soo dhaq sida yeel iyadoo qaawan ninkeedina iridu fadhiya ama aabeed banaan ku fadhiya markaas uu tusaya qaabka ayadana way qaawanta marka waxaad ogaataan diinta islaamka anako aan haysana Soomaaliya ay ku daca qorsan tahay la isku fitagambinaya dhibka jira ka waraysan hadda inay ka sheekeyn dad muslimiin oo magac muslim haysta oo sidaas ah ayaa jira fadlan hadii ku soo gaadho qisada cusub tahay subscribe saar